halkaan hadda aan joognaa waa deegaan ka tirsan degmada Cadale oo ay ku dagaalameen beelo walaalo ah oo ay isaga dhinteen dad gaaraya in ka badan ilaa 14 qof in kalena ay ku dhaawacantay barakac baahsan oo ka dhacay dhibaatooyinka ka abuurmay barakacaas iyo dhimashada iyo dhaawaca ka soo koob waxa xirmay jidadkii isku xirahayay gobolada dhexe gobolada xeebta ah oo hadda aan joogno ilaa iyo gobolka Banaadir waxa istaagay isgaarsiintii iyo ganacsigii deegaanadaas oo ay sabab u noqotay arintaas colaada ah oo halkaas ka timid arintaasi wajigeedii koobaad waa dhamaaday insha Allah ciidamadii maleesiyooyinkii isku hortaagnaa oo beelaha waa la kala raray ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo nabadgelyada ilaaliyana waa dhignay barihii muhiimka ah aan ka filaynay inay mar labaad isaga soo noqdaan wadooyinkii maanta toobad aragtaan waa la furay gaadiidleyda Soomaaliyeed iyo inta ganacsanaysaba waa maanta laga bilaabo oo furan yahay waa arkayseen inaan ka jiidayno oodihii ugu horeeyay maanta ayadana waxaan maartay aan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo inta ku safartay dadka deegaanka oo maartay safarkii dib culays badan oo ku noqday inay wadada ay furan tahay meeshana maartay ciidamada ammaanka sugaya looga tagay ay joogaan dhammaan hadduu Ilaahay yiraahdo wixii meeshan ka dhacay Ilaahay maartay intaas noogu simo hadda kadibna waxaan rajaynaynaa in hawshaas ay dhamaato ay ka wada shaqeeyaan dawladda qaranka iyo dawlad goboleedka iyo dhammaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo waxgaradka oo dhanba